Asalaamu calaykum asxaabta halkan igaga xidhan kusoo dhawaada casharkeenii labaad ee barashada Ingiliishta. Maanta waxaynu baranaynaa alphabetka. Introduction macnaheedu waa bilow. Hello everyone. Salaam qof kasta. Welcome back to Bara English. Kusoo dhawow Bara English. In today's lesson, we'll learn the English alphabet. casharkeena maanta waxaynu ku baranaynaa Englishta. The English alphabet has 26 letters. luqadda Englishta waxay leedahay 26 xaraf. Learning the alphabet will help you read. inaad barashada alphabetka waxay kaa caawinaysaa inaad akhrido, write inaad qorto, and pronounce English words correctly, iyo inaad si sax ah ugu dhawaaqdo ereyada Englishta. Pronounce waa ku dhawaaqid, words waa ereyo, correctly waa si sax ah. Alphabetku waxay leedahay xarfo waaweyn iyo xarfaha yaryar. xarfaha waaweyn waxaa leeyahay capital or capital letters. xarfaha yaryarna waxaa leeyahay small letters. Capital letters. marka imika insha Allah waxaan akhriyayaa alphabetka kadibna waan ku soo noqonaynaa. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. ereygan Ingiriisi xagga lahjada Amerikaanka Z baa la yiraahdaa. wuxuu la mid yahay dadka Ingiriiskuna waxay yiraahdaan Z. Z, okay. waxaan xaggan waxa ku qoran Soomaaliga si loogu dhawaaqayay. okay, mar haddaynu waxayna kuwan waa kuwa waaweyn, kuwana waa kuwa yar. xarfaha yaryar, xarfaha waaweyn, xarfaha yaryar. sa loogu dhawaaqo first letter A seeba loo qoraa Soomaali. A. B seeba loo qoraa B. C saasa loo qoraa. D E waa double E. F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y
z z okay haddaba imaka waxaynu dul maraynaa xarfaha aan laga helin af Soomaaliga ama ku adag Soomaalidu inay ku dhawaaqdo waxaynu ka bilaabaynaa p waxay u dhowdahay b ayay u dhawaaq dhowdahay laakiin af Soomaaliga kuma jirto Soomaaliduna had iyo jeer Soomaalidana way ku adagtahay inay ku dhawaaqdo marka p dibnahaad saaraysaa dibnaha si yar oo fudud baad isugu dhufanaysaa dibnaha p halka b-da kale dibnaha xoog suma saartid inta dibnaha waad sus ayar bay istaabtaan dibnu markaad b-da kale ku dhawaaqayso waa b tana waa p marka dibnaha isa saar dadna markiiba kala qaad p okay q waa caadi ka bay ka koobantahay wa iyo u laakiin waa q insa lagu dhawaaqa aad barata waa muhiim xarafka kale inuu tagaynaa waxa weeye v Soomaaliga kuma jirto laakiin ereyga f xarafka f ayaa u dhow xarafka f markaynu leenahay had iyo jeer ilkaha waxaynu saaraa dibinta hoose xaggeeda hoose ayaynu saaraa laakiin v markaad ku dhawaaqayso waa in dibintaada hoose xaggeeda sare ilkaha waa isyara taabtaan dadna v okay waxa soo haray x waa iyo k iyo s marka waa xarfo badan ka kooban weeye laakiin waa caadi af Soomaaliga ku jirta x okay waxa z af Soomaaliga kuma jirta laakiin af Soomaaliga markaad arkayso magacyo badan baa tusaale ahaan oo kale Zainab waana erey iska caam ah Carabidana wuu ku jiraa Zainab af Carabigana waxa weeye waa xarafka zay marka okay waxaan rajeynayaa inaad fahanteen oo tani ka caawin doonto inaad xarfaha Englishta si fiican u barato alphabetka Englishta haddii aad alphabetka Englishta si fiican u baratana akhriska taas ka caawinaysa akhriska haddaad akhri kartana waxay ka caawinaysaa hadalka waxaan ku dhammaynayaa intii dambe halka intan baan akhriyaa insha Allah. Hello everyone, welcome back to Bro English. In today's lesson we will learn the English alphabet. The English alphabet has 26 letters. Learning the alphabet will help you read, write and pronounce English words correctly. haddii aad wax su'aalaha haysa ama comments insha Allah xagga hoose aad igu soo qori doontaa haddii aad wax su'aalaha haysa inaan ka jawaabaan isku dayi doonaa aad iyo aad ba dhamaantiin u mahadsantiin casharaha halkan baan kasii wadi doonaayo kale waxaan rajeynayaa haddaad u baahanta Englishta inaad baratayna insha Allah ku caawin doonaan aad iyo aad ayay u mahadsantiin.